qabaa laba wiil baan haystaa labadayda wiilshada nabiga ciise uu ku dhashay ayaan ku dhalay midna laygama dhalin suu nabi marka maanta say yihiin allah khalqu rabbi baa رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني سلامة ولا ليه قالي الدنيا ذا مال والباقي كجوكتام ولاش الاقتصاد ونيدسو سكسو نقد وناكسن مالين كلا يتوقرح بدن الحمد لله أنا جو عافمات قبا إلى أيام هدس كله واحد رجينا يا إذن كان هنا عافمات قبل يقول وضعون تان بإذن الله إلهي وحقو بحيه وحقو قالي سوا عافماتك انت عافماتك هاسة ربي هاوسياديو انت أنا نهاسنين إلهي وحنو ديننا عافمات إن شاء الله asxaabteeda qaaliga soo dhawaada hada janaalkayga ku cusub tahay subscribe saar like sii share garay comment qurux badan insha Allah intaba waxay noo tahay dhiirigelin maxaa la dhahaa intaba wax aan ku farxeeno waaye alxamdulillah rabaa maanta inaan ka hadlo oo halkan aan soo fariistay waxa waaye video yar oo kliba maamo Soomaaliyeed waaye oo hadlayso hadalo oo maxaa la dhahaa mucjiso ah ama wax yaani de imagine ayay ka hadlaysaa waxyadeeda insha Allah isla arkeena marka hadda waxaan noo shidayaa hadaladeeda insha Allah inay ila daawataan ayaan rajeenayaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka waxaanu nahay dad muslimiin ah oo ilaahay rasuulkiisa yaqaan muddo badan muddadaas maxaan ku leeyahay waqti hore bilaadkan soo galay anigu 1991 baan imid anaa naftayda ka hadlaya kitaabka ilaahay diinta awalan Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah ilaahay kor ka yeelo kitaabka ilaahay iyo xaqa amiin allah kor ka yeelo amiin allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ha u gargaaro amiin wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lil muttaqin ilaahay mushrikiinta haduleeyo amiin ilaahay kuwa muslimiinta mu'minaadka dhibaya iyo kitaabka ilaahay allah haduleeyo amiin allah xaqa ha u heliyo amiin allah naga qabto amiin subhanahu wa ta'ala انت كدب انا وانا قف مسلمين قف دمر انا هي ودنكنا وقتي هوران سو غلاي ان waxaana ku noolay xaqa iyo diinta ilaahay kitaabka ilaahay ana qooy ya rabbi sidni cilman amiin rabbi sidni cilmiga noo siyaadiyo amiin marka laakiin waan dulmanahay muddo 17 sano sanadkii 17aad baan galay cinda waxba igama oga marka ilaahayna wuxuu yiri a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صح آيات كهر رئيسنا ويا يا أهل الكتاب لما تكفرون الحق وأنتم تشهدون ما شاء الله ما رأيت آيات سورة العمران بكوشران عندنا كما ورقبته وأنا لقد ظلمه كريا يقال الصقرة تلك يقال الصقرة بالظلم صح صاحرين الله هدلوي عندنا إلهي كبقين وين التوبات كان الله هدلوي شركة يقال الصقرة anigu meeshan hadarto cidda maxaan ku raada kanaalkan ay hoosayso anigu kuma warqabo laakiin waxa tir su'aalo diini la isweydiinay su'aalahana waan ka jawaabayaa insha Allah laakiin dad muslimiin aanu nahay 17 sano sanadkii 17aad waa ay soconaya qaaribaana kitaabka quraanka akhriya saa'imad baana hay soonta waajibka iyo sunnadaba maxaan ku raada basmalaana hay bismillaahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah bismillah baarakta shaakirad baana alxamdulillah maar saadaqad baana hay إلهي رسولك يتغان مؤمنات من أنت وذلك ويقتلون أنبياء بغير حق إلهي أنبياء سلام الله حق لما دله نيك ودنك هيست مسلم ما هن مغلي ما هو عابد داقوتك دتك مسلمين شغالين وكدح شقيستان كتابك إلهنا هو كد المية هي وأن الظلمنا هي لبا ويل بان هيستا كوي 10 سنه ilma calooshayda ku jira maxaan ku raadayay dhakhtar hadaan tagana lacagtu ma iga qaataan maarta waxba habeenka la isoo diraya oo dadka halka igu dhagay oo dadka dhiigooda cabaya wax la arkayana ma aha waana daaqudkaas maxaan ku raadayay aad dhaxdiisa ka shaqeysanaysaan shaydaan waay a'uudu billahi minash shaytaan habeenka shaydaan buu noqonayaa bahal buu noqonayaa lagu ka soo soo galay aniga laba wiil baan ma shirka dhiigu naga de ma arkayna laakiin waan dareemayaa halka dhabarkii intaasi وانا 17 سنه مده ku dhow 16 sano guri atreerayaan tagnaa hadal baan isku arkay aan lahaan jirin dagaalka Soomaaliyana
ilaahay way arkaya jabhadii Soomaaliyeed dagaalamay arday jaamacad dhigatanaha iyo waan ka qayb galay iyo maxaan ku raad dawladda siyaad darwaan kala dhaxadiyay culimo oo diinka baan kamid ahaa qof muslim aan ahay waxaan ahayn baa la iga sheegsiinaya ataagi xanuun baa la igu hayay sixir ayaa la igu hayaa dad muslimiin sheeganayaan way la socdaan waa daaqudyo alladina yaakuluuna riba waa la socda la'natullah 'ala al-kaadibiin baa la socda la'natullah 'ala al-dhaalimiin baa la socda la'natullah 'ala al-mushrikiin ما ركزا بدون المؤمن قف مؤمنة لقما فضيلة كافر أنا الله وصل كعيس مسلمين بانو نهاي ما ركزا لو أول بان هيسا المايراك توت 17 كيلو قليل المهي سوى علاشة كتيرة سوى بنانك شوين نغني المهي إنه هذا وآفرت علوقة هلا النبي عيسى كمدها وبسم الله ورب القلام با كمدها ما ركزا يا أو حكمنا مولع النبي الله محن كرا ذاينك جواد يهودا ما اسمك بسم الله أنتو يوري أنك ربنا إسرائيل أي مصبيتي ما ركزا محن كرا ذاي الله سبحانه وتعالى مركو أصحاب الأيكة العذاب يعنق راي هو يدي طبك أنت أوقف غضب كبدها أفرت عنقها هذا شيء أنو نغني مد بدنك كشرة هذا يا الله أكبر تكبير يا الله وأنا دول من ألقوها وأنا دات كانوا وحنا جموجا داتك وحنا جموجا بكاس سعركم وحيالها قرصان لما أركيو وحنا مقدون بالله أركيا والسحر وحنا لقوها وأتاك والربا الذين يأكلون الربا كتابك إلهي ثمن قليل آياتك إلهي لما سيستو وكان قتاسان قبا لو ويلبان هيستا لو إذا ورسل النبي الله عيسى وكل شيء أيان كل من الله يجمع دالين سو النبي مركا ما أنت نسي كل سيهين الله خالق ربي بقى هذا فيديو طبعا maamada waxay tiri waa dulmanahay 17 sano ayaan dulmanahay cidnana ima ogo 17 sano ayaan dulmanahay cidnana ima ogo jirkeyga ayaa guryaheena ayaa la soo galaa jirkeena ayaa lagu shaqeystaa subhanallah ilaahay ayaan ka magan galnay ilaahay rabbi raxmaan ha ka dulqaado ilaahayga rabbiga caadilka raxmaankeena ha ka dulqaado waxa haayo insha Allah family-geeda iyo dadkeeda waxaan dhahayaa ruqyada ugu dadaala ruqyo sharciya u shida insha Allah wuu ka baxayaa biidnillah shifooyinkana ugu tacaala oo ugu dadaala shifo ina geysaan biidnillah maxaa la waxay tiri waa dulmanahay cidnana ima ogo muddo 17 sano saaxiriinta Allah qabto maamada waa u jeedaan way jiran tahay waa qof xanuunsan waa qof sixran waa qof la saaran yahay korkeeda waxa waaye maxaa la dhahaa waa qof ka dareemaysiin inay jiran tahay waa qof jiniyo iyo waxaas ku jiro subhanallah ilaahay ha caafiyo rabbi ha caafiyo isaga caadila ilaahay ha caafiyo waxa ay tiri qof caafimaad qaba hadalkaas kumuusan hadleen waxay dhahday qof caafimaad qaba hadalkaas kumuusan hadleen waxay tiri laba wiil ayaan dhalay labadeeda wiilna nin iga dhalay ma aqaanin sidii nabi ciise maryama loogu abuuray camal ayaa u dhalay wiilasheedana ma fahmaysaa waa lagu abuuray camal marka subhanallah qof maskaxdiisa toosanta waxaas kumuusan hadleen iyada hadlayso waa ka dareemaysiin way jiran tahay way xanuunsan tahay okay commentiyada caayada dadka u soo qorayaan ka daaya caayada maxaa la duco ayay horta qof xanuunsan marka aragtiin buu isyeelyeelayaa intuu ka baxay saan waay waa u jeedaa inay isyeelyeeleenin ahludiin waaye maasha Allah sida diinta u taqaanaan ku dhahay maasha Allah waa ka arkaysaan way jiran tahay xanuun waaye xanuunka Allah keeno Allahna qaado u duceeya kaliya ducada waa muhiim subhanallah Soomaaliyeed ducay mudan tahay ma mudna in la habaaro in la caayo in la aflagaadeeyo subhanallah maanta hadday aqli qabto hadday toosan tahay ka wada qof caadiyo oo xanuunsaneen hadday tahay inta soo istaagto waxaas ma dhahdeen just waxa ay ku hadlayso waa way ka muuqataa way jiran tahay qof xanuunsan waay ma maqlaysaan wax way xanuunsan tahay waad ka arkaysaan indhihiina ma ku arkaysiin وأوجدان إن جرنتها إلهي عافية بإذن الله وعافي ماضي سا إلهي أيان ويديننا عافمات فهم لجيدا إيو لبدي عيالي ديس لبو ويل نتري أم ليا لبو ويل أيان دلائي تري لبدي ذا ويل إيو فهم لجيدا بإذن الله وحن إلهي وقبريايا إني كنت عالان يجنا وحن دايا هو يدين كنت عالا
oo ruqiya sharciya ushida ruqiya sharciya shifa geeya habeen maalin ushida insha allah ilaahay wuu ka dulqaadayaa biidnillah wayna caafimaadaysaa insha allah usoo duceeya asxaabteeda qaaliga ah waad arkaysaan waa wax laga naxo waa wax laga xumaado waa wax laga calool xumaado run ahaantii qofkaagii oo xanuunsan ilaah unbaa caafimaadka keeno xanuunka keeno caafimaadkana keeno ilaahay caafimaad ha siiyo asxaabteeda qaaligee soo dhawaaw janaalkayga haddaad ku cusub tahay ha bixin adoona subscribe ii saarin ha bixin adoona like ii saarin taas codsi waaye amar ma aha codsi le waaya marka maxaa la dhahaa sii shargareeya commentiga quruxda badan lamaamada usoo duceeya ilaahay inuu caafiyo ducada waa muhiim in la isku duceeyo wallahi ducada waxa waaye maasha allah aad iyo aad iyo aaday qaali u tahay ducada haddaad ogtihiin waa ogtihiin haddaadan ogeyninaan hadda ogaada ducada aa u duceynaysid ayuu ilaahay laga yaabaa inuu ku caafiyo insha allah marka asxaabteeda qaaliga ee hadalkan iguma dheereynayo fiidigana iguma dheereynayo aadaan ii jeclahay aad iyo aad